baan kugu soo laabanayaa waqtigii gabagabada barnaamijkan ku sii dhawaanaynaa gabagabadu su'aalo qof walba barnaamijku marti ku noqdo ama wariyahan ahaado ama gudoomiyahan noqdo ama maxaan ku iraahdaaye dadka ciyaaraha noqdaane su'aalo kaftan oo lagu weydiiyay barnaamijka ayaa jira adigu waa galayna insha Allah ciyaaru wax badan baad ka sheekeynaysaa waxna ka qoraysay waxna ka tabinaysay inaad ciyaarto isku fiicantiin aniga warkaas war weyn waaye laakiin ciyaaro inaan ciyaaro way dhacdaayo laakiin xamaraanba mararka qaar ku siinay inaad wadadaan aad isaga shugleydo iska alminteysidba arsi ahna ka ya mar waa dhacaysaa lagu leeyahay yani adduunyadu waa jirtaa inta in la alminteeyo laamigan hadda feer intaan soo orod ka soo bilowdo ilaa iyo meelaha waa isaga ordi karnay waxa noo diiday waxay tahay arsi ahna ka see loo hayaa lagu leeyahay marka maya dadkii ay marada dhacaysa moodaysa adina marka waxaad ku khasbantahay inaad suraalka saan isaga qabsato ku khasban tahay laakiin kubadda cagtu waan ciyaari jiray waqti hore waan jeclaan jiray kooxda wada madbacada maya anigu hadda meelaha ma gaarin laakiin waa soo ciyaari jiray ilaa iyo heer horyaal waa gaaray oo xitaa seere waa galay oo waa ciyaaray xoogaa laakiin Maria masawa Maria bale Maria ma jirto riya waa jirtaa riya taas waxba riyada adduunka la yiraahdo taas riya adduun waa laakiin anigu xoogaa waxaan isku baasahayn Cristiano kale xoogaa mararka qaar inaan isaga la sinaano waa laga yaabaa lugahan sida la yeelay oo riyadan yaan isku dhaawacmayna xoogaa halka markan meelaha soo kale dadku garbaha ciyaartooga waa meelaha ku fiicanahay marka riya waa iska jirtaayo waa iska jilbicsayaashad ku jirta maya marar badan waan isla ciyaarnay iyo laakiin wali waxaan isu maleeyaa inaan fantastic ahayo haddii hadda reer Wenger haddii lay geli lahaa Arsenal iyo meelaha Manchester United iyo Arsene Wenger iyo Klopp iyo anigu hadda rag badan boos waa ka shaqayn karay Maxamed su'aasha kale rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay qof walba cunada waxbuu ka xiiseeyaa adigu mid aad ugu jeceshahay ee maalintii marna aadan seegin waatay warkaas waa weyn kayba marka waxaan dhihi lahaa shuruuc cunta wallahi saaxiibkaygu cunto wax diiday ma laha laakiin niyahow maadaama lagu soo koriyay soor iyo cambuulo hadda ma tusi kartid marka ilaani laakiin cambuulaha igala gamban iyo soor ma biga galgambanaysid macnaha ma ku iimaanaya hadda yani waa ku soo weynaani xoogaa marka bariya waxaan u baahanahayo bisi waxa la sheeshay in kastoon arkin hadda laakiin waa adiga xoogaa yar sambuuska iyo xoogaa cuntada laftirkeeda in laga ilbaaxay maraysa hadda ma la rayaabe oo hadda bisi may maroysaan yiri cuntadii ma oo bariiska in la helo iyo baastadii ma hadda in iska dhaaf wixii la dhaafiya bisi ay maroysaan yiri marka hadda xoogaa cuntooyinka adiga bariiska iyo baastada iyo shuqulkaas waa ka bixi karaa laakiin hadda shuquladaas kale waa lagu soo koray hadda bariyaha maxamed libskaaga aad u qurux badan yahay anigu waqtigii igu ka dambeysay xageena soo wax badan inaadan kala socon baan ogaa laga yaabay gadaasheen ay wax isbedeleen oo xitaa aragtida libiskan uu qof kale ka yimid bal ma noo sheegi karaysaa wallahi diyahow shuriyow hadda ciidu hadda ka yimaaday ma jirtee laakiin bulshadan aan 24 saac aan u shaqeeyo oo aan ku dhex jiro oo aan maalin kasta barnaamijyo iyo waxyaabo badan Facebookyada ilaa iyo meelaha ugu la xiriiriyo mooyaane iyaga ugu kalifaya mooyaane ama waxaan iska jeclahay nolosha caadiga ah in fanaanad yar iyo mataqaanaa iyo surwaalko mararka qaar buumo iyo micnaha surwaalka adigoo kuwa maxaa la yiraahdaa maaliyadaha oo kale in lagu soo socdo marka waa jeclahay marka noloshaas oo kale dadka in lagu laagmar aad u jeclahay marka dharkan hadda meel uu ka yimaad ma laha waxa weeyaan hadda shuuriya maanta ku balamiye mariyana dhici darteed rag iska celis ma aha yaa rag iska celis ma aha marka waxaan meel ka yimaad ma laha aan wad baali kasta waxaan ma xirni waxaan sida dharka qofka bini aadamka caadiga ah dharku uu xirto in adiga fiicantina laga yaabaa marka walaakin waa ka wax badan kuma sii dheereenaan su'aashaas waxa tahay tabiye oo tabiyaasha aad looga jecel yahay magaalada Muqdisho maxamed qadaro xaga tabintu ma John Champion ayaad ku dayata mas'aa dhinaca Caraba waa dad qaar way isweydiinayaan su'aasha iyada aniga dadka aan barnaamijyada maalin kasta la socodsiiyo oo saacad kasta ku dhex jiro
baa wax kasta igu kalifaya sida qofka aan ugu dhigo ciyaarta uu daawanayo sida inay dhaladii agtaalo kale aan mararka qaar ciyaarta u sameeyaa si xamaasadaysan oo qiiradaysan marka waxaa laga yaabaa in carabtu aan iska soo wajahno laakiin mararka qaar oo kulamadu markay goolashu waqti badan ay dhadhasheen 3-4 meel ay dhalatay wax loo xadreeyo ma jirto inuu iska yiraahdo waxa waa laga yaabo oo Ronny baa dhaliyay waa marka waa in xagga Ingiriiska noqonaya wayahay isla qodobkaas intaadan ka bixin tabintaada dadka qaarkii inay waxa ku jira meelo kala duwan oo dunida joogo oo aanan wax badan ka ogin markuu gool dhasho qaabkee adigu aad ciyaarta u tabisaa goolka marka uu dhasho shuriyow waxaan rabaa in qofka barnaamijka ka dhageysanaya dadku waxay isugu jiraan dad dhageysanaya telefoon dad dhageysanaya iyo dad daawanaya isugu jiraan ikas dadku daawanaya xitaa ay mararka qaar codka idaacadda ay si toos u haystaan haddana waxaan rabaa kan dhageysanaya oo aan daawanaynin inaan dhaladii inta u keeno ka kale ee daawanayana inaan wixii si fiican usula arko marka sidaas daraadeed si qiiradaysan oo xamaasadaysan ayaan ugu dhigaa ciyaarto kubaduhu markay soo gaaraan diilinta goolka warku isbedelaya laga yaabo inaan iraahdo markuu daafac kubadda soo baasayo inaan iraahdo Marcelo waa baasay waa qabsaday Ramo waa baasay hadday kubaddu gaadho garoos oo dhexdu jooga oo Modric siisiyo haddii geeska la geeyo Cristiano loo dhiibo wixii waa isbedelayaan يعني قفك isbedelka tusaale haa marka waxa la rabaa mugta hadii qofkii ku dhageysanay ee raadiga dhageysanay adigoon maanta xaaladda la soo socodsiinin hadaad iska tiraado gool qofkii wadnaha kubadii ninkan difaacu ku ogaa adina gool aad tiri marka waxa la rabaa qofka marxalad kastaba marka inay si xogeysanayso marka aan si qiiroonayo inuu dareemi karo inuu goolka u dhow yahay marka hadii aad leedahay inaan fiirino gool la leeyo kale habeen dambe iyo ciyaaraya Atletico de Madrid iyo Real Madrid Atletico Madrid iyo Real okay haddaan Real weerarka ku qaado kubaddu aan Atletico ka soo buriyo xaqeedu Real waa ay kurkurayaan halka hada inta ka soo wada ciyaartu hal ka dhig min gool iyo gool kala si min hal gool kala si okay oo weerarku ay marka kanu sitaan ciyaartooga Real inkastoo revenge u dhici karayo markasta Milan ba hadda korinta laga qaaday waa yahay Real oo socotay inay waqtigii dambe ciyaartu badiso okay ba waa kan Cristiano Ronaldo yajiday meel fiican buu ciyaartu dhigay marka kan Bale wuxuu baasay Cristiano meel fiican waa soo laaday Ronaldo goal ya Cristiano Ronaldo unstoppable ya master unstoppable Real laba goal Atletico hal tartiibaya ma la gaarin ciyaarta marka waa uu saas weeyaan marka khaab xamaasadaysan ayaan ciyaarta wayahay maxamedow adkaaga tabinta aad buu qurux badan yahay mar inta tabintii aad ka wacaato ma isku dayday waxoogaa sugaantu inaad qac ka siisid wallahi niyo hadda dadka barnaamijyadii waxay la socdaa horta heesus kuma fiicnin hindiga waa adoo turjumiyaan maqlayaan hindiga iyo anigu dhinac kasta waa u gali karaya dadka sportiga waa entertainment iyo waxyaabahaasno adoon la socodsiiyayo heesu Soomaalidu waa jeclahay waa dhageystaa heesta kugu saameynta badan Soomaalida anigu heesta igu saameynta badan heesaha Soomaalida waa heesta hooyo Maxamed Suleymaan Tuuc u qaaday wayahay heeska sanad u jeclahay aadan u jeclahay heeskaas malaga Soomaaliyeed wax yar naga ma qashin kartaa sidii timid wallahi maradan inaad ridaad u baahan tahay shuuriyow laakiin heesku niyo aniga horta xolaxanka ku fiican la xamiista ahay wixii horta si caadi uma qaadi karin laakiin laxan meelan ka saara iyada laftirkeeda xitaa nooga shub niyo waa yahay marwaa dhacday waa ka waxa isoo ku jirtay تو ان كاميرو هستا جوجي بس شوري والله كنت شوري لحنك يا اخي امتحانك ادوك مرسيسه ولا عناده ديك انت واي محمد قدر قبل haddii aad saadaalisid ciyaarta tan maxay kula noqonaysaa in natiijada laga heli kara markaa noqonayso horta shuuriyow inta natiijada shuuriyow yaa hal koomar bis habeen dambe hadduu sidaan koobka qaado sidaan wuxuu noqonayaa ciyaartooga iyo tababarayaasha iyagoo ciyaartooy iyagoo tababarayaal koobka kan qaaday ayuu noqonayaayo
todoba nin baa hadda kahor waxay ahayn iyagoo ciyaartoyna way qaadeen iyagoo tababarna way qaadeen waxaa kamid ahaan jiray nin la oran jiray Miguel Munas iyo Giovanni Trapattoni iyo John Cruyff iyo Ancelotti iyo Frank Rijkaard iyo Josep Guardiola uma kamid ah waliba nin yow hadda mar hadii isman arkay arma halka gool badan lagu dhaliyaa Suuriya oo magaalada Milano magaalo dhib badan weeyaan oo garoonka San Siro labada koox ku ciyaaraba ah laba koox oo daafaciid ba marka magaalada Milano la yiri labadii final ugu dambeeyay ee lagu qabtay waa kii 1970kii laba kuwi extra time la isla gaaray waliba waxa la waqti dheer ciyaarta la isla gaaray haddana in la isla gaaro laga yaabo waliba saddexdii final ee magaalada Milan lagu ciyaaray la yiri oo 1965 ilaa 70kii ilaa kuwi waxa la yiri wax ka badan hal gool la isagama badinin Suuriyo mid kale oo jirtan waxay tahay Real hadii ay Champions League kan ruuxdo horta Barcelona waa jiranay iyadoo hadda laba koob qaaday warkaas waa dhiba laakiin haday Real Madrid Champions League kan qaado Barcelona waxay dhaawici doontaa Barcelona Real hadda wax weeyaan tan iyo 1990 iyo labadii marka magaca Champions League la bixiyay waa labada kooxood ee kaliya afar koob Champions League ka haysta magaca intuu jiro afar jeer qaadan Champions League hadii marka Real ay Champions League habeen dam qaado waxay noqon doontaa Real kooxda intuu magaca jiro Champions League guuleystay noqon doontaa tan saadaasha waqti dheer in loo fikro bay u baahnayeen way walaalkii ciyaartaan aad u adag tahay moogtahay Ronaldo ma isku dhiiba Messi Griezmann isku dhiibay maraysa aniga ay gruumeen gruuida kama yeelay anigu hadda saadaal iga tahay bes laakiin midna ma xigsanay labada dhinac laakiin anigu waxay la tahay niman yahow ilmaha horta wax kala waa ilmaha yaryarka wax kala waa Athletic Liirado laakiin waxa uu maleynaya in taariikhdu Real ay u heelin doonto mar kale maxay 4 sano la soo dhaaf koobkan ay finaalka Manchester way qaadaysi inay qaada laga yaabo marka Real Madrid ayaan u maleynaya inay qaadi karayaan tirada goolasha waxa suurtagal ah isku daygu saadaasho inuu dhib badan yahay tirada gool maadaama Milan la yiri saddexdii finaal lagu qabtay magaalada Milan lagu kala badinay wax ka yar hal gool la iska dhalinay oo waqti time la isla gaaray habeen dambe goolashu laba gool way gaari doonaan hal ma ku dhamaanayso laba gool way gaari doonaan hadii labadaas goolna in la iska barajeedo qotana laakiin laba gool ciyaartu way gaari doontaa in dhinacyo lagu garaaco Real lagu garaaco ama kuwan lagu garaaco mid way noqon doontaa laakiin balis ku xasinaysa Real Madrid maya anigu Real baan siinaya laakiin kubaddu cagta kama daarigu hadda waa isla wada bartay Ronaldo xaga duu ka jiidayo anigu waadana waa jiidi karnaa wad ogtahay hadda marka qaar meelahan isku aragnaayo shuri waxaan arkayaa kubaddu Ilaahay amarkiis wax kale ku noqotay kubaddii bariyahan ya marka kubad waa la wada garaaci karaa kama daar anigu waa wada garaaci karnaa hadda kubad waa la isla bartay marka waxaan saadalinayaa in Real Madrid koobkan ay qaadi karto ala wax kasto dhaco in koobkan ay qaadi karaan hadii laakiin laga qaado walaalayaal waxaan saadalin lahaa walaalkiya igili kowdo geedan laakiin aleega wax garuun ma jiro yaan lagu garuumeyn man idinka yeelayo marka waa ka waayahay saadal idin u daranay su'aasha ugu dambaysa dadka Soomaaliyeed dadka qaarkii ciyaaraha ku jira waxay wax iska weydiiyaan kooxaha ay taageeraan dad baa hadda maanta oo dhan su'aaleyn aan ku qancin oo sugaya su'aasha ah qadar horyaalka Ingiriiska uu ka taageeraa Maxamed Qadar iyo La Liga ka xiiseeya horyaalka wadanka Talyaaniga teebuu la dhacsan yahay saddexda su'aal in xal loo helo ayaan jeclaan lahaa maanta Suuriyo su'aashan waa su'aal dhowr iyo shantii sano u dambeeyay lix sano u dambeeyay dadku ay weydiinayeen laakiin anigu hadda koox anigu labada kooxood ee ciyaaraysa hadba kii fiican oo ciyaartu wata kii badiyaan la jira kii laga badina ma la jiray sanad kasta anigu waxaan qaadaa ilaa iyo 7 koob 10 koob aan qaadaa yaani kooxii qaada waa la jira horyaalka Ingiriiska oo kale anigu hadii aan dhinac la jirin hadda sanadan waxa lagu haystay Leicester maxaa koobka Leicester horyaalka shantiisii ayaan yiri ilmahana koobka qaada waa qaadan waa tii lagu qabsay Leicester aad nagu soo dhistay wax kale ka dhigtay laakiin anigu si sharciga koox aan ka jeclaa ma jirto kubadda cagtu kii badinayaan baa la jiray kii laga badinayna ma jeclaa marxaladda wariyanimada markaa timid ka hor yaad u saacabato ma jirto anigu waaga ciyaaraha Talyaaniga aan u jeclaan jiray oo Ingiriiska iyo Spain ma fiirsan jirin inta badan markii oo maqlaayo Real iyo waxa ciyaaraya iyo Sociedad markii la oran jiray iyo Arsenal iyo waxa ciyaaraya Manchester markii la oran jiray waa jirtay inaan fiirsado Milan iyo Palermo kala iyo Inter Milan iyo waxa aan fiirsan jiray laakiin kubadda cagta Talyaaniga aad u xiisay jiray waqtiga oo waqti maxalli la soo dib badan la soo mariyo raadi wax laga dhigo jiray oo raadiga xitaa marka la heli karay waqti waxa aad kugu baxday magaca ah Bato
baato milan buu ciyaari jiray daawashada milanna wad xiisaan jirtay marka qadar kooxdiisa koowaad dunidu waa milan ayaan oran karnaa maya maxamed qadar sida waqtigaasna markaan talyaanigu daawan jiray ciyaar ahaan ciyaartooyina jeclaad waa suuragal oo qaabku ay u ciyaarayaan maadaama anigu aan lambar 7 iska ahayba baato wuxuu wada jiray 7 Ronaldo hadda wuxuu wataa 7 waa waxaan iska leenahay inaan kubadaha Naadir Amiin iyo waa hadda way maxamed waqtiga aad noo haya inta ayaan jeclaan lahayn maadaama waqtigeena kulaalayeen barnaamijkan ku hakino waxaan u mahad celinayaa daawadayaasha uga qayb qaatay barnaamijka dhinaca Facebookga iyo dhinaca qadadka telefoonada waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Maxamed Qadar Ibrahim Daahir oo markaa isagu ila fadhiyay studio Universal ee magaalada Muqdisho maxamed waan kaaga mahad celinayaa waqtigaadna siisay aad baan kaaga mahad celinayaa laakiin adiguna okay waayahay waa maasantahay gudaan daawadayaal barnaamijkii ayaa intaa ku dhan anigoo maxamed Shariin Nuur ayaa idin la socodsiinayay dhinaca kaamirada saaxiibkay Qaalid Xaaji Maki ayuu